Bismillahirrahmanirrahiim. Magacaygu waa Faadimo Cabdulqaadir. Maanta waxaan idiin wadaa qiso gaaban oo ku cibro qaadasho mudan. Sheekadeena maanta waxay ku bilaabanaysaa magaca wiilka waxa la dhahaa Khamiis. Macallimadu waxay ku jirtaa fasalka. Waxa la joogo wiil yar oo maskaxda looga jiro. Macallimada ayaa waxay ku tiri wallaahi Khamiisow gacantaada ayaan ku dhiman doonaa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa iskuulka timid Khamiis hooyadiis si ay u ogaato aqoonta wiilkeeda. Macallimada ayaa waxay u sheegtay duqdi in aysan arkin weligeed wax ka doqonsan Khamiis uuna yahay mid laga quustay oo aan faa'iido lahayn. Waxay la talin siisay hooyadii Khamiis oo waxay tiri iskuulka ka saar maadaama uu lahayn maskax iyo caqli badan oo waxaad bartaa shaqo uu ku shaqaysan karo. Hooyadii markii ay dhageysatay la talintii macallimada wax quusasho ah ma aysan muujin, waxayna go'aan ku gaartay in ay ka guuraan tuulada ay degan yihiin oo ay u guurto magaalo kale oo ay degto. Dhinaca kale macallimada waxa laga qaban jiray waqtiyada qaar wadnaha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa laga qabtay wadnaha oo aad ayay u xanuunsatay. Markii tagtay dhakhtarkii waxa lagu yiri waxa laga hayaa wadnaha mana jiro xal aan ahayn in lagu sameeyo qaliin. Waxa la jiifiyay isbitaalka si loogu sameeyo qalitaan dhanka wadnaha ah. Waa la suuxiyay si hawsha qalitaanka loogu bilaabo. Qaliinkii kadib dhakhtarkii waa uu ku guuleystay hawshii adkeyd ee ahayd qalitaanka. Markii indhaha soo kala qaaday waxay aragtay dhakhtarkii oo u dhoola cadeynaya. Waxay eegtay dhanka kale mise waxa ka muuqda oo taagan Khamiis oo raba in uu qabto shaqada u taalo oo ahayd nadaafadda qolka. Laakiin nasiib darro dhakhtarka waxa uu isku dayay in uu fahmo waxa ay sheegayso, hase ahaatee ma dhicin oo waxa ka baxday nafta. Ilaa oksijiinta fiiladiisa ayuu bixiyay Khamiis si uu u gasho mashiinka uu dhulku ku nadiifin rabay. Waxa soo baxday sheekadii ahayd Khamiisow gacantaada ayaan ku dhiman doonaa. Waxay ku dhimatay gacanta Khamiis. Walaal, waxaan kugula talinayaa inaad ka fiirsato waxa aad falayso ama aad ku hadlayso mar walba.